magacaygu yahay Samsam Diiriyo Suudi ahaana mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani madaxa abaabulka iyo wacyigelinta gobolka Maroodi Jeex waxaan maanta halkan ka cadeynayaa aan u sheegayaa bulshada reer Soomaaliland guud iyo dibadba taageerayaashayda asxaabtayda ahaana xildhibaanadii golaha deegaanka ee xisbiga mucaaradka ee wadani ee aan guuleysan bacdamaaba ummadda aan bulsho badan ku leeyahay taageerayaal badan ku leeyahay asxaab badan aan ku leeyahay runtiina aan jeclaa inaan ku mideeyo xisbiga wadani oo aan barbar taagna waxaan maanta u cadeynayaa inaan xilkii xubintii golaha dhexe iyo xilkaygii ahaa madaxa abaabulka iyo wacyigelinta gobolka Maroodi Jeex iyo himiladaydiiba aan kala noqday xisbigii mucaaradka ahaa ee wadani runtii waxa laga yaabaa inay asxaabtaydii su'aalo badan isweydiin doonaan oo oran doonaan naanisna waxaan u lahaa Samsam wadani tolo Samsam wadani maxay iska bedelay waxaan u sheegayaa waxa iska kay bedelayna yihiin sababo ka muuqday xisbiga mucaaradka ee wadani runtii xisbiga mucaaradka ee wadani xisbigaygii buu ahaa codkaygii iyo adduunkaygii iyo maalkaygii iyo noloshaydii oo dhan baan ku hibeeyay haddana waxaan ku faraxsanaa yacnihii joogitaanka iyo hanka xisbiga wadani marun baydun gaari doontaan oo hiigsan doontaan hanka madaxtooyo oo ay tagi doontaan madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland dalkan iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaalilandna ay ku hogaamin doontaan niyad samaan qalbi samaan raadin doontaan qarankan ictiraafka Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii waxaan u arkay inaan xisbiga wadani dani ugu jirin Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii iyadoo aad arkayso siyaasiyiintii waaweyneed ee xisbiga wadani halka ay marayaan hankooda siyaasadeed runtii gudoomiye Cabdiraxmaan musharaxa madaxweynaha ana speakerka golaha baarlamaanka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi in badan baan soo wada shaqeynay sharafna waanu hayaa shakhsiyan runtii dadaad isku dhowna waanu ahayn itraam baanu hayaa shakhsiyadiisa laakiin mushkiladda jirta ee aan anigu maanta kaliftay inaan iskaga casilo waxa kale ee kamida barobal badan baa ka taagan xisbiga wadani barobalka ka taagani waa barobal family waxa weeye family-gu ka soo jeeday mudane Cabdiraxmaan Ciro oo ah musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani waxa sabab u ah aan maanta uga tagayaa reerka uu ka soo jeedo ee la yiraahdo magaca Habaryoonis runtii Habaryoonis waxa ay ku noqotay xisbiga wadani dhuxun ku reeb bay ku noqotay dhuxun ku reeb waxa loo yaqaanaa jinaca yaryar ee dadka cuna ayaa loo yaqaanaa waa la wada garanayaa dhuxun ku reeb waxa weeyaan markuu meelaha ku jirjiro ka baxbadeeru ku qaniinto meelaha aqalka hareerihiisa marmaraayo waxba kuma yeelo laakiin markuu godad leeyahay uu godad samaysto habeen walba boqolba kaaga soo dhaxbaxaya waa ayaan daro godadkaas waxa weeyaan Habaryoonis godad bay ku leedahay xisbiga wadani godadkaas oo ah muraayadii xisbiga iyo shaashadihii xisbiga ee caalamku naga daawanayay ayaga ayaa maamulaya ayaga ayaan cid u ogolayn ayaga dhuxun ku reebka dadka qaniina ku ah waxay haystaan arrimihii dabadda waa Habaryoonis waxay haystaan maaliyadii waa Habaryoonis waxay haystaan warfaafintii ku xigeenkii oo maamulada meesha oo speaker-ka ah waa Habaryoonis waxa ay haystaan xogayihii waxay haystaan gaarka ahaa waxay haystaan guddoomiyihii golaha dhexe waxay haystaan dhammaan muraayadii ka muuqan lahaa xisbiga ee laga soo saari lahaa hadday iska fadhiyaanuune sababta ay ku noqdeen dhuxun ku reeb booraan ku jiro oo madaxa kala soo jeeda waa marka qofku xil hayo oo xilkii uu hayeyna awoodii xisbigu ay ku jirto ee dadkii dhaqaajin lahaa iyo howlwadeenadii xisbigu ay doonaan inay hawshii dhaqaajiyaan waxay kala soo jeedaan booraantii radu madaxa kala soo jeedaan marka dadkii qofkii galay wax dhaqaajisana way ka qaniinayaan waa ayaan daro waa foolxumo dhuxun ku reeb buu noqday dadka isla wadani baa maanta ay ka cadahay ama ay ka shidan tahayna waxaan u sheegayaa wadani waxba ma dhex yaalaan aniga hal laygu taamilo qaato aniga hal lay arko Samsam wadani baa la yiraahdaa dhiigayga iyo dheecaankayga iyo noloshaydii oo dhan baan huray adduunkaygii baan ku waayay waan khamaaray haddaan qabyaalad doonayo Faysal Cali Waraaba maalintii taagnaa waxa maalintii taagnaa ururo kale oo iga dhow waxaan codkayga ku waayo wadani Cabdiraxmaan Ciro aan warkaayay inuu qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland hogaamin karo masayrka Soomaalilandna uu hagi karo laakiin waa ayaan daro waxa ka dhex muuqata in aan iyadoo meel bal gaadhin
dee xisbigii wadani barbar ka taagan qoodhiin iyo xiradin faamiliga gurigiisa iyo faamiliga ay beeshiisa ninka xallin waayay ama dadka xallin waayay ma qarankay hogaamin karaan waa maya qarankii kuma aamini karaayo runtii qaranka Soomaaliland walaac baan ka muujinayaa haddii uu qabsado mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waayo ninka dabka gurigiisa baqtiya ayaa dabka dabadana baqtiya runtii waxaan leeyahay aniga oo aan waliba jeclayn inaan guda galo anigoo xogagaala anigoo wax badan og haddana ma jecli inaan wada guda galo laakiin waxaan cadaynayaa maanta sababta igu kaliftay inay taa tahay waxa ogtihiin siyaasiyiin reer Soomaaliland waxirsi ka mid yahay oo rabbu baa ka mid yahay oo mas'uuliyiin badan oo deegaanka haweenka ciidagala ka soo jeeda ay ka mid yihiin runtii inay dabada taagan yihiin inaan wali meel ay ka shaqeeyaan iyo cid ay la shaqeeyaan ba ay leeyihiin anigu haweenkaygii iyo beeshan ka soo jeeday ee calanka wadani igu dhex gubaysay runtii markii aan anigu ka sharaxnaa waxaan ku mideeyeen haddana doonay inaan keeno wadani de markuu dhuxunku raabka bilaabmay durba ayagoon meel gaadhin hore musharaxiintoodu oran jireen baastadeedana soo saartay de maanta iyadoon meelba la gaadhin de haday durba yiraahdeen anaga reer Abale laabta iskaraaceen runtii waxaan leeyahay anigoo hambalyeynaya haweenkayga sharafta badnaa in maalintii dhaweed ku casuunay xisbiga wadani iyo siyaasiyiinteedii qaaliga ahaaba haddana waxaan leeyahay walaalayaal dhuxunku raabkiin badan baan xamilaayay waan xamili kari waayay bal idinkuna intuu idin qaniinayo bal hasuga oo ila indheendheeya inantayadii yareed 17 jirka ahayd waxay tidhi anaga dhiigga isku kaay jira waxaan u arkaynay inuu nin dalka soo saari kara yahay laakiin waa wax balaan wallahi waa wax balaan waxaana sheegi doonaa insha Allah xagga dambe ka sheegi maalmaha soo socda halka aan ku biiri doono ka hilaaci doono dulmaadyadayda ka bilaabi doono billahi kariin waan ku taageersanahay walaashay Samsam Deeriye hadalka ay maanta tiri in ay xog haye ka ahayd gobolka Maroodi Jeex maxay ahayd degmada Maxamuud Haybe Maxamed Mooge Salaxley dadkii ay oo hoobaynaysay ayaanu ka midnahay waanu se ku diidnay maalinkan maantaana iyadaan ku raacsanahay